السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هالكان وبحسن سيدي ميديا فضلا هدي اي تاي مركا كوغو هريسة بوقشتا هالكان سبسكرايب ده شير ده لايك ده كومنت نكبه maanta waxaan halkan kusoo gudbin doonaa faa'iidada ay leedahay ceebaha qofka oo la qariyo. Maalin maalmaha ka mid ah baa gabar waxay ninkeedii ka dalbatay inuu u qoro warqad ka turjumaysa sifooyinkeeda xun ay leedahay si ay wax ugu bedesho uguna jawaabto codsi gaar ah oo kaga yimid dalad ay dumarku ku midaysan yihiin oo alaaba xog aruurin joogta ah ku samaysa arrimaha qoyska iyo nolosha la xiriirta oo ay gabadhu ka tirsaneed. Ninkii gabadha qabay wuxuu qalinka u qaatay warqad dheer si uu sharaxaad waafi ah uga bixiyo tilmaamaha xun ay xaaskiisu kula dhaqanto. Wuxuuna yidhi, anigu waxaan jeclahay xaaskayga, mana ku arkin wax ceeba oo aan ka sheego. Dabadeed intuu warqadii xiray ayuu u dhiibay xaaskiisa, sidaas ayayna ku gaartay guddigii haweenka ee baaritaanka ugu jiray inay aruuriyaan macluumaad dhab ah oo ku saabsan dabeecadda qalafsan ee ay dumarku kula joogaan raggooda markay guursadaan. Haddaba sida caadiga maalintii xigtay ayuu ninkii guriga kusoo laabtay si uu daalkii shaqadii iyo buuqii magaalada uga nasto. Nasiib wanaag maanta waa maalin ka duwan maalmihii hore. Waxay indhihiisu qabteen xaaskiisa oo taagan meel albaabka dhinaciisa ah oo gacanta ku haysa ubax aad u qurux badan, islamarkaana la ilmeynaysa farxad zaa'ida oo wejigeeda laga dareemayay markii aad midacsato. Waxaa ninkii lama filaan ku noqotay dhacdada ay xaaskiisa uga warantay oo ah inay ammaan ballaaran ka heshay dadweynaha maadaama ay ku guulaystay fariin uu ka gudbiyey loona aqoonsay inay tahay gabar wanaagsan oo ninkeeda sharafto. taasna ay tahay wax laga doonayo qoys kasta oo nolosha ku bahoobay. dhankan kale ninkii u jawaab celinayo xaaskiisa ayaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay, waan awooday inaan caddeeyo xumaan badan oo aad deris la tahay, laakiin waxaan ogaaday in xaalku uusan ku jirin in aan ceebahaaga cid naga baxsan la wadaago. si kastaba gabadhii waxaa dhalaalay qalbigeeda, waxayna wacad ku martay in ay wanaajiso ninkeeda inta ka dhiman nolosheeda iyadoo sabab uga dhigtay ficilka uu kudayashada mudan ee uu gacdiyaheeda ku kasbaday. guud ahaan xikmadda ku jirto sheekada waxay tahay in la qariyo ceebaha dadka haba ugu darnaato marka shakhsiyaad kale hortooda laga sheego, waayo qalad laguma saxo qalad, balse wanaaga oo qura ayaa tusin karo qofka abuuri kara farxad iyo jacayl. waana midda kaliya ee lagu hanan karo nolol macaan oo naxariis iyo ixtiraam ku dhisan. fadlan walaal, adigoo mahadsan, sheerde oo la wadaaga asxaabtaada muuqaalkan si ay wax badan kaga bartaan ceebo badan ay u qariyaan. dabcan Soomaalidu inta badan waa dad inta badan ceebaha dadka aan qarin. fadlan noqo mid astura ceebaha dadka kale. aad u mahadsantihiin la socoshada muuqaalkeeda.